السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran janaalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago shalay waxaan ognahay madaxweyne Trump in uu yiri muddo aan la cayimin ayaan xabad joojintii ku daray kadib markii ay iga codsadeen ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidamada ee wadanka Pakistan arrintaasi Iran waxay tiri Mareykanku waqti dheeraad ah ayuu doonayaa in uu iskaga darsado xabad joojinta laakiin iyagu way ka aamuseen halka shacabka Iran ay dabaaldegeen Iran gantaaladeeda ay la soo baxday Iran marka waxay leedahay hadii cadawgu mar kale uu dagaal dib u bilaabo waxa ay la kulmi doonaan waxyaabo aysan xisaabta ku darsan sidoo kalena Iran saaka laba markab oo mid kamid ah lala xiriirinayo Israa'iil ayay gacanta ku dhigeen kadib markii ay sheegeen inay ku xadgudbeen marinka Hormuz arrintaasi waan idin la wadaagaya Mareykanka waxa la leeyahay hub yaraan ayaa soo wajahday hubkii kaydka ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa la leeyahay Mareykanku inta badan waa uu isticmaalay in la soo saarana sanado ayay qaadanaysaa arrintaasi oo hadda wasaaradda gaashaandhigga la filayo in Congress-ka ay lacag weydiisatana waan idin la wadaagaya warbixintaasi gobolka Virginia shalay waxaan idin sheegay in dimuqraadiyiintu ay doonayeen dib u qaabeyn inay ku sameeyaan kuraasta laga soo doorto aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka haddaba reer Virginia shalay ay ugu codayeen sidaas darteed kuraas dheeriya ayaa dimuqraadiyiintu ay ka heli doonaan doorashooyinka xilliga dhexe dhamaadka sanadkan marka la gaaro Republicaankuna waxay leeyihiin arrintaasi maxkamad ayaan la tagi doonaa waxaan ogaanay madaxweyne Trump inuu bartiisa Truth Social-ka ku soo qoray qoraal kooban oo uu leeyahay waxa aan ku darnay xabad joojintii muddo aan la cayimin kadib markii ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo taliyaha ciidamada ay iga codsadeen inaan weerarkii Iran aan ku qaadi lahaa inaan hakiyo sida darteed waxa uu yiri ciidamada Mareykanka waxaan ku amray go'doominta inay ku sii hayaan Iran dekedaheeda inaan la gali karin lagana soo bixi karin laakiin ay diyaar ahaadaan markasta ilaa iyo madaxda Iran ay isku soo raacayaan qodobo ay isku midaysan yihiin Iran arrintaasi maba ka hadlinba shibta ayamta ayaa loo galay Trump waa laga aamusay waxa la yiri Trump isaga ayaa marna xabad joojin sheegaya marna dhahaya xabad joojintii waan ku daray amaba waa ay dhamaatay marka sidaa darteed wali maba aysan ka hadlinba xubnaha qaar ayaa waxay yiraahdeen arrintaasi waa arrin maamulka Trump uu kaligii uu iska wato laakiin inaga wada hadalna uma socono hadii dagaal la bilaabana diyaar ayaan u nahay marka hadda waxa ay dawladda Iran ay leedahay marka diyaar ayaan u nahay inaan soo bandhigno waxyaabo ay la yaabaan cadawgeena hadii dagaalku mar kale uu dib u bilowdo waxa ay leeyihiin cadawgu waxyaabo uusan xisaabta ku darsan ayay la kulmi doonaan waxa la arkayay iyagoo gantaalo Fatax 1 iyo Fatax 2 iyo Qumar Shahar 4 iyo soo bandhigaya shacabkuna dabaaldegaya sida darteed waxa ay leeyihiin waxyaabo cadawgu uusan xisaabta ku darsan ayuu la kulmi doonaa hadii mar kale dagaalka ay dib u bilaabaan oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ula jeedaan sidoo kalena ciidamada badda ee Iran oo Trump u dhahayay waan burburino waxa ma aanan ka reebin saaka waxay gacanta ku dhigeen laba markab oo ay sheegeen inay ku xadgudbeen marinka Hormuz waxaana labadan markab mid kamid ah la yiraahdaa MC Francesca waxayna sheegeen in dawladda Israa'iil uu xiriir la leeyahay markabkan iyo mid kale waxayna xaqiijiyeen labadan markab in ay xadgudub sameynayeen isla markaana sharciyada marinka Hormuz aan u dejinay ayay ku xadgudbeen sidaas darteed gacanta ayaan ku dhignay biyaha Iran ayaana loo kaxeeyay haddana waxa baaritaan lagu hayaa xamuulka saaran iyo dokumentiyada maraakiibtaasi ay wataan sidaas dawladda Iran ayaa waliba maraakiibta qaar ayay xabadayeen markii ay gacanta ay ku dhigayeen Iran marinka Hormuz iyadoo u xiran yahay waan ognahay dhinacan kalena Mareykanka ayaa jooga oo dhahaya Iran wax galaya iyo wax ka soo baxaya male laba maalin ka horna waa kuwii markab Iran ay leedahay oo tuska la yiraahdo dawladda Mareykanku ay gacanta ay ku dhigtay haddaba arrin la yaab leh ayaa soo baxaysa dawladda Mareykanka waxa la leeyahay hubkii kaydka ayaa ka sii dhamaanaya ku dhawaad 40 maalmood oo dagaal Iran ay kula jirtay Mareykankuna dhinac waxaan ognahay gantaalada difaaca inuu Israa'iil ka siinayay dhinacna Iran ayuu dagaal kula jiray marka hadda warbixin la sameysay kooxdan la yiraahdo Center of Strategic International Studies ayaa waxa ay sheegayaan in Mareykanka hadiiba dagaal uu la galo Ruushka iyo Shiinaha laga adkaan karo maxaa yeelay hubkii kaydka oo idil ayaa kala bar ama intiisa badan ba la isticmaalay waxa warbixintan ay sheegaysaa Mareykanku waxaan ognahay hubka uu ku dagaalamaya mahana waxa jira hub kale oo kayd ah oo hadii loo baahdo uu Mareykanku la soo bixi karo marka ciladu waxay ka taagan tahay hubkii kaydka ayaa intiisa badan la isticmaalay
xilligii waxaan ognahay Ukraine Biden uu xilka hayana in hub fara badan Mareykanku uu Ukraine siinayay marka iyadoo arintaasi ay jirto Mareykankuna dhinaca Ukraine hub ka siinayay dhinacna Israa'iil uu ka siinayay ayaa haddana dagaal uu galay sidaas darteed hub yaraan baahsan ayaa soo wajahday hadda waxa la leeyahay Mareykanku hub ku filan oo kula sii dagaalama Iran waa uu haya laakiin mustaqbalka dhow hadii dagaal uu la galo wadamada xurguftu kala dhaxayso sida Ruushka iyo Shiinaha waxa la leeyahay hub yaraan aad u fara badan ayaa soo wajahi karta marka waxa muuqanaysa marka hadda in militariga Mareykanka ay leeyihiin waxaan isticmaalnay 45% gantaalada la hago oo meeshii loogu talagalay inta lagu hago gantaalada ku dhaca 45% ayaa Mareykanku isticmaalay sidoo kalena waxa 50% uu isticmaalay gantaalada la yiraahdo THAAD missiles kuwaas oo ka hortaga gantaalada ballistic ah ayuu 50% isticmaalay sidoo kalena 50% wuxuu isticmaalay gantaalada kale ee Patriot-ka la yiraahdo kuwaasi oo iyaguna air defense-ga oo hawada difaaca gantaalada lagu soo tuuro iyaguna hawada sare uga hortaga waana kuwa muhiim u ah ayaa la leeyahay dawladda Mareykanka sidoo kale Mareykanku waxa la leeyahay 30% ayaa waxa uu isticmaalay gantaalada ridada dheer ee Tomahawk missiles kuwaasi oo targetyada fog loogu talagalay in Mareykanku uu la beegsado waxa la leeyahay 30% ayuu isticmaalay sidoo kale 20% ayaa waxa uu isticmaalay gantaalada la yiraahdo SM3 iyo waliba SM6 waxaana muuqanaysa marka in waxa la leeyahay Mareykanku si uu hubkaasi kaydka ugu soo celiyo oo loo soo saaro 1 sano ilaa iyo 6 sano ayay qaadan kartaa isla markii dagaalkan Mareykanka Iran uu ku bilaabay waxaan ognahay in shirkadaha contractiga kula jira qandaraaska kula jira wasaaradda gaashaandhigga in isla markiiba la yiri waa ina dardar gelisaan sameynta hub cusub marka arintan ayaa soo baxaysa taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane markii Mareykanku uu isku diyaarinayay in dagaalkan uu ku qaado Iran arintan waa uu ka digay oo waxa uu yiri hub yaraan ayaa jirta madaxweyne Trump waa uu kala taliyay waxa uu yiri ha ku degdegin arintan laakiin Trump ma uusan dhageysan oo dagaalkan waa uu ku qaaday sida hadda Israa'iil iyo Ukraine oo kale waxaan ognahay Mareykanku inuu dhinac hub ka siinay walow markuu Trump midii Ukraine jiray laakiin Israa'iil uu hub fara badan siiyay marka wasaaradda gaashaandhigga hadda waxa ay weydiisanaysaa Congress-ka lacaga dheeraada si hubkaasi kaydka Mareykanka mar kale inta la sameeyo loogu soo celiyo Congress-kan uma malaynayo arintaas inuu yeelayo maxaa yeelay markii dagaalkan la bilaabayaba Congress-ka madaxweyne Trump ma uusan kala tashanin marka lacaga fara badanna hadda waa ay ku baxeen already haddaba telefishinka CNN-ka ayaa arintan shalay ku dhawaaqay kadib markii uu ogaaday bal wax yar ila daawada gabadhan oo ka warbixinaysa Mareykanka sida hub yaraan dhinaca kaydka ay u haysato iyo hubabka kala duwan ee uu isticmaalay. The U.S. military has significantly depleted its stockpile of key missiles during the war with Iran. And according to experts, this reduction is so severe it has created a near-term risk of the U.S. running out of ammunition should a future conflict arise in the next few years. Yeah, Brianna, so according to this new study by the Center for Strategic and International Studies, which was, their findings were confirmed by 3 sources familiar with recent Pentagon assessments of U.S. stockpiles, the U.S. is running dangerously low on some of these key munitions that would be required to confront a near-peer adversary in the short term, like China, for example. So while the U.S. does still have sufficient munitions to continue bombing Iran, for example, if the shaky ceasefire were to fall apart, if they were to need to confront an adversary like China or like Russia, for example, then that could pose significant problems for the United States. Now, just to give you an example of how much the U.S. stockpile has been depleted over the last 7+ weeks of war on Iran, according to this assessment and the sources that we spoke to, the U.S. military has expended at least 45% of its stockpile of precision strike missiles, at least half of its inventory of THAAD missiles, which are designed to intercept ballistic missiles, and nearly 50% of its stockpile of Patriot air defense interceptor missiles, which are, of course, very key air defense munitions. Now, the U.S. military has also expended approximately 30% of its Tomahawk missiles stockpile, which are those long-range munitions that are really key to attacking targets further away. More than 20% of its stockpile of long-range joint air-to-surface standoff missiles, and approximately 20% of its SM3 and
American SM-6 missiles. Now, this is important because these munitions take a while to be replaced. And according to our sources and this analysis, it would take anywhere between 1 to 6 years to replace a lot of these munitions. And so this is a really big problem that we should note that the chairman of the Joint Chiefs, General Dan Kane, he actually warned about as the administration was preparing to potentially go to war with Iran. He was raising concerns, we're told, about this issue of depleted stockpiles around the world, particularly ones that could be very useful to U.S. allies like Israel and Ukraine. So the Pentagon is preparing to ask for a supplemental from Congress for additional funding to try to replace these munitions, but it could still take quite some time before those are actually back in U.S. stockpile. ugu dambeyntii shalay waxaan idin sheegay gobolka Virginia inay u codeynayeen in dib u qaabeyn lagu sameeyo qaab doorasheedka degmooyinka gobolkaasi oo Republicanku ay gobollo fara badan ay hore uga bilaabeen. Haddaba dadka reer Virginia ha iyo maya ay ugu kala codeynayeen in 4 kursi oo dheeraada dimuqraadiyiintu ay ka helaan gobolka Virginia aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka doorashooyinka dhamaadka sanadkan ee November dhacaya. Haddaba waxaa muuqanaysa in 51.3% dadka reer Virginia ay u codeeyeen ha in kuraastaasi ay helaan xisbiga dimuqraadiga 48.7% arintaasi waa ay diideen. Republicanku waxay yiraahdeen su'aalo fara badan ayaa arintan ka taagan waxaana lagu xalin doonaa maxkamadda oo arintan maxkamadda ayaan u gudbin doonaa. Republicanku iyaga ayaa arintan soo bilaabay. Gudoomiyaha gobolka Virginia Abigail Spanbergerna arintan waa ay soo dhaweysay waxay tiri reer Virginia waa ay hadleen waa ayna codeeyeen isla markaana waxay ka soo horjeesteen dadaalka madaxweyne Trump uu ku doonayo kuraas dheeraada inuu uga helo Congress-ka doorashooyinka soo socda. Marka gobollo fara badan oo Republican ayaa arintan hore u sameeyay oo ilaa iyo 5 gobol ah waa Utah, Texas, Missouri, Ohio iyo North Carolina. goboladaasi oo idil horay ay arintan ay u sameeyeen. Marka hal gobol oo dimuqraadi ayaa horay u sameeyay waa California, haddana Virginia ayaa soo labeysay. Hadda waliba Republicanku iyagii ayaaba yaabanba hawshan ay bilaabeen ayaa waxa ay leeyihiin dimuqraadiyiintii waa ay naga daba keeneen. Marka xisbiga dimuqraadiga 4 kursi oo dheeraad ah ayuu ka heli doonaa gobolka Virginia doorashooyinka Congress-ka gaar ahaan aqalka wakiilada ee dhamaadka sanadkan dhacaya halka markii hore ay lahaayeen 6 waxa ay heli doonaan 4 dheeraad sidaasi 11 kursi ee laga soo doortay gobolka Virginia 10 kamid ah dimuqraadiyiinta ayaa yeelan doona halka sidoo kalena hal xubin ay Republicanku ay yeelan doonaan markii hore marka halka 5 xubnood ay Republicanku ay ka lahaayeen 4 kursi ayaa laga qaadanaya oo dimuqraadiyiinta ayaa ka qaadanaya sidaas darteed gobollo kale ayaa iyaguna hawshan ku guda jira oo la filaya inay ku daysadaan in goboladan kale sida kuwa Republicanka iyo kuwa dimuqraadiyiinta marka waxaa lagu kala tartamaya aqlabiyada labada aqal doorashooyinka November dhamaadka sanadkan dhacaya ee doorashooyinka xilliga dhexe oo Trump uusan doonayn in uu lumiyo sida muuqatana arrimaha dhaqaalaha iyo dagaalkan Iran uu kula jiro darteed laga yaabo in madaxweynuhu labada aqalba looga guuleysto waan arki doonaa arrimahaasina halka ay ku dhamaadaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta nabadgelyo